بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد waxaan halkan salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweyne ku-xigeenka golaha wasiirada golaha guurtida golaha wakiilada gudoomiyaha maxkamadda sare madaxda ciidamada dhammaan xafladda shacbiga ka soo qayb galay oo magacoodu aan koobi karaynin aad baan idin salaamaya. waxaan idinku salaamayaa caaw maanta waxa sharaf ah inaan ka soo qayb galo xuska la xusaayo markii calanka aynu qaadanay. كل أنا جو حلا يقول يا رجال كم حفرة يا إني تاريخ ذا حقوقال إلى محكاها وإن لحد السنة اللي جت جوجا ما أنت السديت تنبانا يوقفانا لواتن لحد كي سديت تجاسل ما أنتهي مركب إحنا هم ذكر لما تنجرأ أو مدرس أو كتبة آخرية دكس الحنا كبحي لكن علوم الإسلام جاء ثقافة هير سرع كله تاريخ قرآن نوح قوي جري أو كاتب قرآن معها haddaan taariikhda dib ugu noqdo waxaad ogtihiin habeenkaasi habeen qiimo leh ayuu ahaa ummadda Soomaaliland oo dhani waxay xusuusan tahay weeye wuxuu Ingiriisku dalka soo galay 1886 ayuu soo galay 60kiina waxaan ka qaadanay calankii baan ka qaadanay oo inaga baxay muddada waxaanu ka soo degay Zaylac iyo Berbera labada meelood buu ka soo degay maxaa yeelay waqtiga labada meelood baa camirnaa وأنا لبدي ميلود أي دجنايين دولتي عثمانية أي دجنايين وحضرين يقول كا ما دام دولتي عثمانية لبدي ميلود أي كدجنايين لكن الصومال الآن لو رجري عيد أما بر الصومال بل لو رجري لبدا وكدجنا لبدي ميلود بكسر رياي سلاسين كل حين دولتي عثمانية ده هيدا تركي جو العالم الإسلامي مدحتك عيدي كل سديك بقول لي حسيتك أي بحري إلهي وحي النوافجية إنا قال لحنا كيلو النوافجية حتى تاريخ ذا إن دب يرغون نقضه صومالي لان ويجرتي داد كو هذا قايي حرن ماذا صومالي لان كو هذا قايو أفراد كوحة لكن صومالي لان أو مركرية دقاق ذا وحاوقوه رياي عفرية كنتو كيبا إنوقوه ريسي مركي رسي في إيريا لبحيي وضياشي قايلة ذي اللي يمدى وارا يبقى وبرع يجيب داك سوك عي يريد الكلام يوالا ديبي برينا وحا كحيكته بربرية زي العباب برينا كحيكته أو بضع دولة إثيوبيا كل قاعد طبعا سنتهاي مركز أفر يكون تكبر لحد أصلا ضد بحلقين كين نور كتير ويجري ضد الحريم هذا كو هذا قيوه كوريي لكن الشعب يقول وضع السرقعة تصحي وحينك الصومال لا ولا بينور دارين فكرة الشنطة الصوماليات إن الله يسكو كيانا بينور دارين وعينور كيني هذه Soomaaliya oo magaceeda loo oran jiray Soomaaliya loo oran jiray inaga Soomaaliland baa loo oran jiray iyagana Soomaaliya qof waxa loo oran jiray xaguu ka yimiday Soomaaliya ka yimid Soomaaliya toosadii magaciisa ku baxay ay qaadi jireen baa Soomaaliya loo oran jiray marka walaalahan waa inaynu israacnaa laakiin waxaynu isku raacaynaa waxa la yiri maxay hayay saddexdii kalena waa inay soo hoydaan shanta Soomaaliyeed ee ku dhalatay saasay waad maqasheen baan u maleynayaa eraygii loo oran jiray lagu hadaaqayay شنطو إسوهيسدا وعنيدا على إني وداعانا وعنيدا لورنجري هذان تادي بقول نقطة تاريخ هالكان دي بقول نقطة وحي هيد لحنا كي مركي أنقاذناي وحل وذو جابي هيد لما الدولة دول أو مثل إنجليز قلا إنجليز كحكومة أو إنجليز ثقافة دول أي تاي قلا إيطاليان وحكومة أو ثقافة دول إيطاليان أي تاي لا وضع قيمات بينهم وحشيسة حاج إبراهيم عيال وحن أفتي كهيا أنا حاج أبو بكر الشيخ عمر شيخ إبراهيم الشيخ مدريو سلطان عبد الرحمن يو وضيال الشيخ موسى جامعي وضيال بدل أنه أبا نوح محمد حاج إبراهيم عيال ويديني محاي الدولة إلين كالقرآن أو هالكيبات وحكوك القرتين وحوري وحن استودع يقولي إلى الراديو أنا قلت وحنا كالقرآن ما جرين بولي لما الدولة ضوء وحوض كالقرتين ما جرين بولي halkan kulkii ra'iisul wasaaraha isagu ahaa ee dawladda halkan ay ka tageen iyo xamar wax qoraal oo la sameeyay haba yaraatay ma jirin odayaashii labada dhan ee halkeenan ka tagay waliba heshiiskii waan israacinaa uu la yiri mooyaane la soo heli maayo wada Roomana laga soo heli maayo Londonna laga soo heli maayo labada Soomaaliya iyo Soomaaliland intay soo fadhiisteen wax kala qortay oo aan israacnay waxa lagu dhaqaaqay baaqi weeyna ee shacbi weynuhu yiri shantoo isweeshada wacanayda la yiri lagu dhaqaaqay bay ahayd ka kaali taas way burtay taa adigu dib ugu noqon maayo maanta taariikhdeedu waa wax la wada og yahay
halgankii xarakada SNM ay gashay ee dowladda Siyaad Barre ay la gashay waxa dalka la qabtay 1991 markii la qabtay wax shir oo la qabto ugu horeeyay waxa jiray shirka Boorama dadku ma wada yaqaanaan kan 1993 waxa ka horeeyay 1991 February 4 Boorama la soo galay iyo intooda badnayd 28 February shirkii guul alla ayaa hoteelka Harawo lagu qabtay ka oo odayaashii beeruhu ay ku lafagureen in dagaalkii dhacay aanu ahayn dagaal qabiili aanu marnaba ahayn ee ay ahaan dagaalkii naga dhaxeeyay qayb dawladda hidaysay oo dulmi weyn oo laga garaabayo ka tirsatay iyo qayb leh war hay naga ridinay dawladnimadu arday burburta lama samaysan karo waa quruurade inta aan buu laakiin wax qabiil oo loo dagaalamay ma jirin waxaad ku garanaysaa ciidamadii SNM kulkay 4 galbeed boodama soo galeen 12 maalmana way ka bixeen 12 maalmana way ka bixeen iyagoo leh wixii idin yimaadaay waxa weeye waa dad burcada waa jabhado daydaya iska celiya wixii soo noqdo waa naga baxnay waxa ku xigay shir yaroo koobnaa oo ka dhacay isaguna barbara ka dhacay anu kama aan qayb galin barbarad kama aan qayb galin oo loogu gogol xaarayay sidii shirkii weynaa ee Soomaaliland lagu dhisaayay loogu qaban lahaa waxa lagu gooyay barbara in laga qabto 18 May burcad isugu yimaado dhammaan beelaha Soomaaliland haddii maanta kolkii hore saaka la soo sheego oo la ilaa xafladaad ku qoran tahay dee buugga waa soo qaadan lahaa qoraalkaygii casarkii u baa la yiri madaxtooyada lagaga yeelayaa xafladaad ka qayb galaysa laakiin waxaan hayaa oo keeni doona labada wasiir ee midna uu yahay wasiirka warfaafinta oo qaybta bariga ka soo jeeda iyo wasiirka Islaan Maxamuud Saacad oo qaybta galbeedka ka soo jeeda qoraalkii beeluhu beel ka maqnayd inaanay jirin ee la isugu wada yimid shirka burcaan waan hayaa kii sheekhana waan hayaa kii Boorama waan ka hayaa naqarta Soomaaliland oo beelna ka maqnayn ayaa burcaan isku tirtay mararka qaar kood waxay yiraahdaan waxaan aad iyo aad ula yaabaa dadka yiraahdaa kooxun baa Soomaaliland ma ahin looma dhanayn ama waa la nabadaynayo nabad bay ahayd oo arrin nabadayna oo bay ahayd ma ahin beelaha Soomaaliland baa ka soo qayb galay waa la wada ogaa waa la joogay haddaanu awdal nahay anigu oran maayo anigu qofku ahaa oran maayo laakiin iyadoo dadku ku hadaaqayo oo la leeyahay waan goosanaynaa annaga nile goosanayno waan la soo noqonay baan ku bedelaynaa Cabdi Ismaaciil Allah u naxariistee imaamadiisii intuu soo qaado halka madaxa iga saaray eragaasi kulku iga soo baxay waan goosanay oran mayna waxay nooga dhib yarin dawlad baynu ahayne waan la soo noqonay dawladnimadeennii baan la soo noqonay laga bilaabo maanta waan goosanay la oran maayo waan la soo noqonay baa la oranayaa baa leeyahay waxa halka lagu go'aamiyay in maxay hay'adey 2 sanadood madaxdii SNM lagu doortay Cabdiraxmaan Axmed Cali iyo Xasan Ciise madaxweyne muddo 2 sanadood xilka ay hayaan kadamano doorasho la sameeyo laakiin suurtagal uma ay noqonin inay hagaagu hantaan oo gacanta ku dhigaan waxaan dhibaatadu ay ka dhacday jabhadihii oo aan la habaynin iyadoo jabhadihii la habaynin oo aan la kala dhigin ayaan dawladnimo aan ku dhaqaaqnay marka nimanka madaxda aad bay igu dadaalayeen taagtoodii laakiin waxa ka hortimid caqabad dad dhan oo hubkii wada qaaday oo dagaal la soo galay sidii loo habeyn lahaa baa ka timid taasi waxay sababtay dagaalkii burca ka dhacay ee beelaha ka dhacay ayay sababtay dagaalkii ka dhacay barbara ka dhacay bay sababtay dadka qaar kood baa laga yaabaa ay moodayaan markii 18 May aan ku dhawaaqnay kolkiiba in barwaaqo uu la galay ma inaan galin kolkiiba barwaaqo dhibaatooyin waaweyn baa dhacay oo burco ka dhacay barbarana tii loogaabay ahayd labadaba odayaashii galbeedka oo madaxa ahaa Xaaji Abubakar Sheekh Umar Xaaji Daahir oo cilmaad ka garataan Xaaji Daawud Sheekh Muuse Jaamac Goodaad saaxiibkii Allah u naxariisto dhamaantood be ragga aad ka garataan yaanu ku gurmanay burco ilaahay si dib noogu dhameeyay aniga si gaar ah waa la ixtiraamiyo burco aaba Sheekh Cali Jawhar meel kitaab ka akhriyo burca ugu dambeysay 26 ayaa ugu dambeysay Sheekh Cabdullaahi baa socdo kolka la ilaa si gaar ah ayaa dadku ii imaansanayeen iyadoo odayada kale iga wada muddo karsanay iga weynaayeen oo odayadeedii ahaayeen laakiin dadku kalsooni gaar ah ducadeedaba lagu qabay kadalik haddana tii barbaraad baanu iyana u soo gurmanay kolkii dambe burca ka nimidnay ayaan dib ugu noqonay reer barbaraad baa noo fadhiistay waxaan muddo dhan baan burca ku maqnayn waan horta reerihii baan tegaynaa waan soo noqonay
sheekha baan ku dhammaynay arrintii barbara dagaaladii ka dhacayna iyagana dadkii beelaha isku saarnay oon dhammaynay waxaa kolkaa odayaashii halkaa joogay ay go'aamiyeen xarakadii madaxdii SNM ee aan ku dooranay kolkaa dowladnimadii cabdiraxmaan axmed cali iyo xasan ciise muddo yaroo kooban oo 6 bilood baa u hadhay waxaa jabhadihii ka dhacayaan waa idinka arkaya zaylac waxaa haysta 99 baa haysta ciidan gaara togo jaaliya gabiil ciidan gaara haysta hargeysa daamaheeda ciidamo gaara haysta sidaasaa la kala wadayaa marka waa kanoo muddadiina way dhammaanaysaa sidaa hadday inoogu dhacdo ay muddadii 2 sano ku dhammaato fawda inagu dhacaysa waxa la yidhi waa inaynu bal qabanaa baa la yidhi waxa sheekh lagu aasaasay sheekh 150 oday in lagu shiro oo beelihii burca ka soo qayb galay ee dhammaa 150 ka kooban inay beel walba ka timaado oo isugu yimaado shir halkeebaa shirka lagu qabtaa la yidhi burco way suuroobi weydaa la yidhi barbara ma suuroobaysaa la yidhi hargeysa ma suuroobaysaa la yidhi halkee suuroobi baa la yidhi boorama soo jeed soo tiri annagaa uga shaqeeyna halkaygaas lagu qabanayaa shirka marka waxaan dhahaa taariikhda laba arrimoodba waa la qariyaa oo lama sheego boorama taariikhdeeda kolka la sheegayo waxa la yidhaa shirkii boorama dowladnimada boorama lagu aasaasay ee lagu dhisay baa la yidhaa laakiin waxa ka maqan in la yiraahdo taasoo suurtagal noqon weyday meel kale in shir lagu qabtaa ay suurtagal noqon weyday xaqiiq baynahay midna waa la qariyaa kale madaxdii sanamta hoggaanka haysay ee uu kamid yahay maanta madaxweynaha halka iga soo horjeeda madaxweynaha Muuse cabdiraxmaan cali dhaga weyne maxaan ku ilaa maxamed kaahin dayib guulay miyaan tirin karaa raggii madaxda ahaa ma kolkaan galaynay waxa la go'aamiyay inaanay madaxdii SNM ka soo qayb galin shirka ay dibadda ka joogaan cabdiraxmaan cali oo loogu ogolaaday maadaama gobolkiisii ay tahay nabadgelyadana aad iyo aad kalsoon qaban lahaa intiina kale waxa la yiri shirka dibadda ka jooga waa dhageysan kartaan baa la yiri laakiin tala kuma liidina mana soo dhex gali kartaan odayada waxba ma weydiin kartaan waxay yiraahdeen marxaba waan qaadanay talada maalintii hadday oran lahaayeen raggii soo halgamay baan nahay annaga ka talinayna shirka waan ka qayb galaynaa sidaa walaalaheen xamar u baan maalintii ahaanay marka taasina waxay dhahaa waa madax waa sharaf laakiin dadku uu qariyaayo lama sheego lama yeelaa ونمكان ساسة مالتها يلان لما يلا أنصار دافو شركي بورم ساسة كنا مدني بقول يكون تركي أضيف هالكان لقوا أساسي بقول يكون تركي أضيف وحيجو آميين دور شيء للسماية والله دور شيء وحلا دور شيء محمد حاج إبراهيم عقال يا عبد الرحمن أو علي فارح أيا الله دور شيء الله دور شيء مدحوين يا مدحوين كريين دولتي لو حلا صور هالجيس أنا اللي يمدي كل كاسي hargeysa kulkii la yimid wuxuu madaxweynihii yiri maxamed xaaji ibraahim cigaal iyo cabdiraxmaan oo cali faarax iyo odayaashii waxa la go'aamiyay madaxdii SNM ee dalka qabatay ee kulkii horeba shirkii boorma aanu nili ma soo galaysaan shirka oo dhageysta uu shirka in hadana mar labaad baan talo u soo jeedinay ciidamada in la habeeyaan waxna booliska ay ka dhigaan waxna militariga ay geeyaan waxna ciidanka usluubta ay geeyaan inta kalena ay kala dareeriyaan إن الله أرق من مدحدي أسنا مها أو عيدا مالكو هيست الله أرق نكها مدحوين عدي أو يارو أو مدحوينك منصب أو مقعابانا هكو قنعو كي أو مقعاب ويانا هكو قنعو سيدي بين كل كشر رجيم مدحدا أها سؤال الجميع كي الله ياري وزير لك دقيق الله يارينا أو أقبل يوم قاطي كي عن لقولنا حلق مسلمينو إذا ما إذا كنا الرسول يأمرنا دبده أم بحين sidaasay noogu bilaabantay waxa ku xigtay kolka shirka boorma laga yimid sida dawladii lagu dhisay waxooga yaroo khilaafay inuu dhacayo beelaha qaadkood iyo dawladii ay isku dhaceen oo dagaal hargeysa ay ka dhaceen oo airportkaasi la furi kari waayay oo dooxa hargeysa la furi kari waayay oo khayriyada xataa anagoo ka khudbadaynayna baabuuradii dagaalamaya ay soo dhax galeen dhinacyada oo kala yaacni waxa guul ma laba ilaa waana iyaguna taariikhda qofka ama nacbow ama jeclow taariikhda lama qariyo waa la sheegaa saddex oday oo dibadda ka yimiday oo Sheekh Xasan Maygaag Cabdi Xasan Buuni Faysal Cali Waraabe saddexdooda oday baa waxay bilaabeen waan bay bilaabeen beelihii ka duday dawladnimada kolka yar duday ee airportka Jidda ka dagaalamayay iyo dawladda inay wada hadashiyaan way soo dhameeyeen guurtidii bay ku soo celiyeen waxaanu tagnay
xarshin baanu tegnay oo aan maxay hayday shirkii iyaguna odayadoodii ay keeneen oo ay hogaaminayaan cali waran cadde iyo maxamed baaruud ninka la yidhaahdaa ay hogaaminayaan bay odayadii keeneen halkaasaan shirkii ku soo dhammaynay halkaasaan sidaa halkaa ku soo noqonnay oo magaaladii ku soo noqonnay odayaashaasi waxay qayb bay ka qaateen dagaalada markaa dhacay ee dhexda ah sidii beerihii ay isugu soo dhoway maanta waxaan u malinayaa waxaa ka nool faysal unbaa noole xasan meegaag iyo cabdi xasan buuni labadiiba way dhintay waayo halkaa hadday marayso waxaan bilownay in la yidhaahdo dowladnimadii aynu aasaasanay muddo 2 sannadood baa la kordhiyey waxaa 97kii doorashadii baa la bilaabay dastuurkii hal la sameeyay baa la yidhi Soomaaliland lagu hogaamin lahaa guddidii dastuurka sameynaysa 15 xubnood baanu ahayn aniga ayaa guddoomiye u ahaa iyadoo ay hirgelin kari waayeen marnii Suudaan iyo Khartoum laga keenay oo muddo loo dhiibay mar horeyse waxa loo dhiibay koox culimo iyo dad badan iskugu jira uu hirgeli waayay 21 maalmood baanu ku hirgelinay dastuurkii annagu qoox waxa aad iyo aad runtii nagu jiray gees baa nagu jiray rag professoraan nagu jiray Cabdulqaadir Xaaji Jiddaan nagu jiray Faarax Shuun oo boorma ka soo jeeday baa nagu jiray rag professoraan baa hogaaminayay annagu culimada waxaanu ilaalinaynay maadooyinka diinta ka hor imanaya waxaanu haysanay dastuur islaami oo ama culimo Pakistaani ay soo jeediyeen ama culimo Masaari ay qoreen kaana annaguna waanu haysanay maada shan xabadood baa noo sii deyn jiray maalintiiba 5 qodob baa la sii deyn jiray 5 qodob oo noogu talagalay culimada diinku inay ka bogtaan oo qodobka diinta ka hor imanaya maalinta kolka laga saaro sidaas oo dastuurkii ku hirgalay doorashadiina lagu galay oo la doortay madaxweyne maxamed xaaji ibraahim cigaal iyo daahir rayaale la doortay sidaas ay noogu hirgashay waxa kolka aqoonta taariikh ahaan wixii ka dambeeyay dawladweyne waxa ku xigay haddana axmed maxamuud siiraani oo la doortay waxa ku xigay daahir rayaale waxa ku xigay siiraani ku xigay haddana waxa maanta jooga Muuse Biixi ayaa jooga halkaas aynu maxay hayday marayna taariikh hadii intaan waan ku soo koobo xagga taariikhda maadaama oday aan ahay wax badan aan u soo joogay dardaaran in yar baan odhanayaa 3 meelood baan ka hadlayaa odayaasha dhaqameedka oday dhaqameedka salaadiina ma ha ahaadaan boqor ha ahaadaan jiif caaqil ha ahaadaan mid baan leh madaxweynahana mid baan leh ahzaabta qaranka oo hadda xisbiga dawladdu ku jirana mid baan leh odayaasha waxaan leeyahay radiyallahu ta'ala an Abu Bakr as-Siddiq iyo xajiyay islaam baa la yiri hadhihi al-mar'a hajjat saamita way xajiyay baa la yiri wayna aamusanto ma hadlaysay inta xajka soo noqonaya hadli maayati markaas Abu Bakr uu yimid ma wada hadlaysay ya Zaynab waa hadlaysaa xadiidka Bukhari wuxuu ku dhigaa ba kitaab al-qasama shanta dhowr xadiis baa u dhaxaysa qofkii doonaya inuu daacado halkaas uu ka heli karaa markaas islaantii ayuu ma banaana sidan yee waad hadlaysaa waad xajiyaysaa ayaa tahay tii markaas uu Abu Bakr oo ayaa tahay Quraysh baan ahay yaad Quraysh ka tahay muhaajiriintii baan ahay muhaajiriintana yaad ka tahay ee waad hadal badan tahay buuri sanad hadal badan kolkaas ay waa amiir al-muuminiinkii baa qofka la hadlaysaa ha waxay tii waxaan ku weydiiyay arrinkan Ilaahay inoo soo dejiyeen ku baraarnay ee jaahiliyadii kaga baxnay inteebaan ku soconaynaayo inteebu inoo joogayaan wuxuu ma salahat a'immatukum wa umara'ukum intay odayaashiina idin hogaaminayay intay toosan yihiin arinteenaasi way toosananaysaa wama a'immatu fiina bayti wa ayaku madaxda noo'i markaas wuxuu ku ama kana lakum fil jaahiliya umara barigi jaahiligi odayaal idin hogaamiyo taladooda qaadataan miyaanay jirin mee way jireen bay tiri de waa ku waabul haday kuwaasi idin hagaagaan waad hagaagaysaa haday idin ka xumaadaan waxba idin hagaagi maayaan marka oday dhaqameedka waxaan leh dawladda way fiican tahay tala in loo jeediyaa way fiican tahay laakiin nidaam bay ku haboontahay wax walba nidaam buu ku haboonyahay ninka weyn korku hadlayana nin weyn oo hadal ka dhacay waa geed qolfi ka dhacay la yiri inuu is dhowro oo hadalka dadku ay odhanayaan war muxuu sidaa u yiri in la ilaa inuu ka dhowrsado way anu malihi aan la caaridin dawladda aan la caaridin malihi mucaaradadu wax iska jira way laakiin ninkii hadlaya oo dhaqameedka iyo hadlaya xil weyn baa iyaga naftooda saaran oo aan ka dhicin xilka madaxweynaha aan ka dhicin kolkay wax u jeedinayaan dawladda usluub fiican oo nadiif ah oo tala ah ha ugu jeediyaan taa waxaan leeyahay odayada dhaqameedka aan leeyahay madaxweynahana mid baan leeyahay
mar hore oo culamaa diinka aad la kulantay oo ramadaan ay ahayd wixii aan ku yidhi uun baan odhan oo ah 3 shay wax ka qabo qabyaaladda in dadka waxa loogu qaybiyo oo nidaam qabaliya lagu soco oo qabiil beeleed lagu dhaqmo arrintaasi waa arrin fool xulo dadka hadduu qabiil wax ku qaybsan yidhaa wuxuu ka dhigan yahay dad midiya aan wax ku cunna yidhi mar unbay qowlalada iskoynayaan malqaacadiyo fandhaallaa wax lagu cunaa laakiin haddii midi baan dardarso qof uu yidhaa mar unbuu qowlalada iskoyn markaa nidaamkaa qabliiga ah inkasta oo marxalad adag ay tahay oo wuxuu dadku ku soo dhaqmay ay tahay laakiin bal haddana nidaam waxaad ku dadaashaa sidii arrintaa wax looga qaban lahay arrintaasi loo dhimi lahay hoos ugu dhici lahayd ta labaad waa geedka qaadka laydhaa waa dhowto tallaabo yar baynu qaadnay oo dhaqdhaqaaqa dadku wuu wada bogay laakiin waa arrin u baahan dowlad iyo shacbiba maalinta ay ka soo go'do bahalkaa qaadkaa inaan goyno maalintaa unbay dowladdu wax qaban adiguna madaxweynihii baa tahay bal khad iyo istiraatiijiyad dariiq jeex bahalkaa lagaga hortegi karo khubaro intood fadhiisiso war bal taladiisa balso war waxaan sideen uga baxnaa dheh 700,000 oo dollar oo yoomiyan inaga baxdaay ama malaayiin dollar oo inaga baxay inagama goodo ta kale wax badan baan ka hadlaa taana iyada qoodka waddanka ka soo baxaya inaynu waddankeena wax kala soo baxno oo zaraacada la xoojiyo oo aynu hoteelka saba ee agteena madaxweynaha ku dhow waxay cajab galiyay baan ku arkay oo haddii lagu dhaqmo oo waliba maayarada galbeedka ee Hargeysa iyo Gabiile iyo Boorami haddii maayaradaas xafuliyaan la yiraahdo wasiirka arrimaha guduhu fuliya oo la yiraahdo lagu najaxay wuxuu ka sameeyay haadii iyo haruurkii oo la isku daray ayuu ka sameeyay ceesh adyaabto qiimihiisa adyaabto oo furka lagaga raysanayo marka dhiirigelin in lagu dhiirigeliyo shacbigeennii waxa waddankeena ka soo baxaya in lagu dhiirigeliyo waan ku leh waxaan ku raacinayaa oo kale qasri weyn baad halkaa ka dhistay oo qasri madaxtooye weeyaan la yidhi allah inoo hirgeliyo insha allahu tacaala waa sharafkii dowladnimo waa nidaamkii dowladnimo laakiin mid baan kugula talinayaa waxaan kugula talinayaa ha ka fikirin sidii meesha aad ku tegi lahayd ha ka fikirin waxaad ku fikirtaa sidii shacbigu kuu geyn lahaa sidii shacbigu halkaa uu kuu geyn lahaa taasaad xoogga saaraysaa waayo waa astaantii dowladnimo haybadii dowladnimo waa lagu farxiyaa marka la arko ciidankii xaraska jumhuuriga oo labisan iyo ciidamada kale qalabka sida waa wax lagu farxayo aqalkaasina wuxuu inoo yahay astaantii dowladnimo ayuu inoo yahay adiga intaasaan kaaga bixi waxa ay hadhay qoladii axsaabta ay hadhay mahmaahayahay haweenku raalliha iga ahaadaan waayo mahmaadu raggana waa lagu afqabsadaa haweenkana waa lagu afqabsadaa nin baa wax oday oo muddo kale wuxuu caashaqo jeclaaday gabadh qurux badan oo taas oo kale aan la arag oo kolka la sifaynayo xuur raacinta kolka la sifaynayo oo kale lagu tilmaamo laakiin maskaxda wax uga yar dhiman yihiin oo dadku ma wada dhalleen xagga maskaxiyan aan dhalnayn markaas warda gabadhu quruxdeedu inay eegine xagga maskaxdana waxba uga dhiman oo qof aan dhalnayn war qushigeeda buu 7 ana joogay gabadha la guuriyay buu gabadhii baa la weydiiyay waxa la yiraahdaa heblaayay miyaa lagu dhisayaa baa la yiraahdaa oo yaa lagu dhisayaa ma garanaya waxay tii odayaasha gadhka waaweyn ee geedka hoos fadhiista mid kamida ayaa lagu dhisayaayo dharkana waa u dhiqi dabka waa u balbaliyay harunkana caanaha ugu shubi iyadu cashirka inta aan bay u haystaa wax kale war haysaaba ma jiro gabadhii baa kolkay dad ma la waraysto heblaayay bal waran baa la yiri aamusabaytay horbal usulka nadiiftay wuxuu sheegtay gabadhaas eeg aamusabaytay nimanka gadhka waaweyn ee geedka hoos fadhiyay inay maryaha waxay qabaan kolkay geedka hoos joogaan aqalka haday kuugu soo galaan maryaha way iska daashaan bay tiri taa waxaan leeyahay هذا حزب أحزاب تقول عنه ما هي حزب الدولة دول وكجرة أحزاب ساكر يعني جعل سنة يصوم با دورشية النظام يعني كان بس سوق اليوم حقي وينام با مريها وقطع كان مركا قضية يدو هدي عنو كل حالات كعين كاسي عن طريقنا هدي عنو لأن هو حقي وقوة مريها دكان يا مريها عنكو قبرنا هدان لا يلا نقول عيب سني يلا نقول عيب سني والله حوي يوحنا لا وقتنا ولا جوجا هذا الكلام وان بديي وان إن كستونا إلى حدنا أورنا صار قابي أنا أورنا لكن أنا قاعد كسر قابي نيا وقت لو جرا
waxaan leenahay walaalayaal Somaliland marxaladda maanta joogta aanu tala ka dhiiban maayo oo sidaa hala yeelo odhan maayo laakiin mid kale uun baan odhani waxaan odhani dawlad baa inoo dhisan golayaal baynu leenahay golo guurti iyo golo deegaan baynu leenahay iyaga aaminsanaano arrintu arrin caalami ah qabsatay oo caalamkii oo dhan indhaha uu inagu hayo inagiya walaalaheen inaga dhaxaysa arrinta aan ku aamino dawladdeena aynu ku aamino oo aynu aaminsanaano midna yaanay shakiga idinka gelin cid idin khasbayso oo ina khasbayso odhanaysa maanta Somaliland khasabaad arrinkaa ku yeer orsa ma jiro kolkay u badato waa kolka la yiraahdo caalamku ku yiraahdo istiftaa la idinka qaadaya food baa la idinka qaadaya oo ila marka Somaliland food baa la idinka qaadaya hadii la yiraahdo shaki bay idinku jireen haddii laba yiraahdo wax la yiraahdo kalsooni baan ugu qabaa in shacabka Somaliland qadiyadiisa aan ka noqonaynin hadii istiftaa laga qaado marka arrinta halka ka socotana xamar waa dad walaalaheena waa dad aynaan islaawi karaynin waan isdhalay ubadkeena gabdhaheena bay qabaan gabdhahoodii baan qabnaa sida Soomaalida kale ay noo wada yihiin wax colaado inaga dhaxaysa haba yaraatee ma jiro wixii dhibaatada laga tirsanay nidaamkii Siyaad Barre ee dawliga abu ahaaye dawladda maanta joogtana inaga waad dishay marihin shacbigana kama cid eed laga sheeganayo haba yaraatee ma jirto marka qadiyada socotana waxaan ilaahay aan ku aamino madaxdeena aan ku aamino السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.